كلها متكالي هنتدي سنقل عدالة لهلي هبين كان نقل درار عدالة لهلي لغدي هو ودانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا meel walba oo daafaha caalamka ka joogtaan kusoo dhawaada qabyaaladii TV barnaamijka dooda danta guud oo aynu caawa ku filanqeyn doono hadduu ay buweyneydmo siyaasadda dalkeena oo inta badan aan jeclayn inaan ka hadlo. waxaanu ku filanqeyn doonaa federaalka iyo aragtida ay dhalinyarada Soomaaliyeed ka haystaan. ujeedadeena ma aha badana in aynu xoog saarno dadka iyagu da'da sideedo kale, laakiin aragtida dhalinyarada iyo federaalka iyo fidnooyinkiisa iyo balaayooyinka wato oo qaarkiin social media wixii maanta iyo shalay ka taagnaa aad garan kartaan dhibka ay leedahay iyo qarannimadeena dhibka ay ku hayso. waa faad qabyaaladida barnaamijka idin daadihin doona intuu socdo. asxaabta waxaad uga qayb qaadan kartaan aragtidiina ku dhiiban kartaan dhinaca commentiga ama fiberka ama whatsappka hadba kii kuu soo gala lambarka shaashada idinka muuqda. barnaamijku waa dooda danta guud. haddaba su-aasha caawa ee barnaamijkeena aynu ku qaadaa dhigi doono waxay tahay federaalka dalkeena dan ma u yahay mise uma aha. asxaabta ayaa waxaan ka doonaynaa iyagu barnaamijka daawanaya inay noo sharaxaan bal federaalku inuu dan u yahay dalkeena Soomaaliya iyo inuusan dan u ahayn. waxaan rajaynayaa asxaabta inay uga qayb qaadan doonaan khadka fiberka ama commentiga hadba kii ay u suurta gasho. barnaamijkana dabcan wixii cilada jira waxaan rajaynayaa inaad ka raali noqon doontaan maadaama aan weli ku jiro tijaabo aan jeclahay qabyaaladii TV inaan ku hirgeliyo hadduu ay buweyneydmo. meel walba dunida joogtaan waxaan idinka codsanayaa barnaamijka intuu socdo inaad asxaabtiina la sii wadaagtaan oo sii share gareysaan. dhinaca commentiyada haddii aan eego Facebooka Yusuf Roxole wuxuu leeyahay aniga isoo qabo. Yusuf dabcan waxaad iga soo wici kartaa whatsappka ama fiberka lambarka shaashada kaaga muuqda. waxaan jeclahay asxaabta sida tooska imika ii daawanaysa inaad la sii wadaagtaan walaalaha Soomaaliyeed si aan uga wada doodno federaalka dan miya inoogu jirta mise inooguma jirto. federaalku dan ma u yahay dalkeena mise uma aha. waxaan ognahay federaalka waxa sababay inay tahay qabyaalada oo ummadeena aad iyo aad u kala fogeysay. haddaba haddii qabyaalada laga gudbo oo ummadda Soomaaliyeed qofba qofka kale uu aamino federaalka ma shacabka ay danta ugu jirtaa mise federaalku waa wax ay siyaasiyiintu iyagu ay ku daneystaan. meel walba joogtaan waa idin soo dhaweynayaa. waxaan jeclahay saxaabta barnaamijka kusoo biirtay iminka sida tooska u daawanaya inaan soo dhaweeyo nimaqali Faynuus Haydar iyo Abuukar Siid oo iyagu barnaamijka si toos u daawanaya. adeesh Cabdullaahi wa alaykum salaam wa rahmatullah. waxaan rajaynayaa saxaabta inaad sii sheergareysaan in badan waxay u maleeyaan barnaamijka inuusan leefahayn wax isleeyahayn waxaan ama wax hore loo sii dawooyahay war ma aha. barnaamijka 60 qof ee daawanaysa sheergareeya oo asxaabta kale la sii sheergareeya. waxaan rajaynayaa intiina ka qayb qaadan kartaa dooda inaad uga qayb qaadataan dhinaca whatsappka ama fiberka hadba kii kuu soo gala si aad dabcan aragtidiina aad noola wadaagtaan oo aynu uga doodno federaalka dalkeena inuu dan u yahay iyo inuusan dan u ahayn hadba kay kula tahay. Soomaaliya halaga dhacay nagayis habarnaye adana waa la isla helay خارتي كين ميل بوجوكتا وادي سو دوينيا
عديش وعليكم السلام يا الله هاي عبد الفتاح إبراهيم يسودو كلا عين فتحي يا حسين أو أسوقنا حلو يسويري إذا كي مولو بجوكتنا خيرت وعلى السلام يا برامج بواتوس هقوم لأننا إنه ستوس هن برامج بواتوس اللي نرمي ذكرى منيا وحيدين ده هني ولكن في قبل الجديد دودنا عاو حيكون سابسنت هاي فدرالكو دلكنا دن مؤية هاي يوم سيء ومعها waxaad uga qayb qaadan kartaa dhinaca commentiga ama dhinaca fiberka ama whatsappka barnaamijkana weli waxaa ku jira tijaabo waxaa dhici karta inay cilad jiri karto haddii cilad jirto dabcan oo khadka idiin soo galaynin waad iisoo sheegi kartaan hadduu eebweyn idmo waxaan soo dhaweynaya sidoo kale maxamed caane geel oo asagoo imika nagu soo beeray iyo faynuus xaydar iyo dhammaan asxaabta imika 14 ayna daawanaya waxaad ka codsanayaa inaad sii sheergaraysaan asxaabtiina la wadaagtaan sidoo kalena dooda aad uga qayb qaadataan dhinaca fiberka ama whatsappka waxaana rajeynayaa in aad hadduu eebaweyne idmo ay qabyaaladii TV aan ka dhigi doono mid ay dhalinyarada Soomaaliyeed ku madadaalato oo kuwa qabyaalada iyo qurunka faafiya har iyo habeen ka hadla inay dadka isku diraan ay ka hadla inay ummadda kala jeediyaan ay ka hadla in ay dhalinyarada Soomaaliyeed kala fogeeyaan kuwaas inaanu meel uga soo wadajeesan doono marka waxaan jeclahay daawadaha ugu horeeya khadka ku jira inaan fursad siiyo halo assalaamu calaykum halo وعليكم السلام ورحمة الله. haye soo dhawo walaal magacaaga halkaa joogtid هنجو أديس عبد الله. adis cabdullahi walaal halkee joogtaa walaal هنجو جمالي. Germany haye soo dhawo walaal waa qodobka dooda waa la socotaa federaalku wadankeena dan ma u yahay mise uma aha فدرال كنيهو دنو معها وقيب وسي قبيل ومعناها وقاب قبيل ولا وناجي ومعناها لقد جيت دولت لكن ما في وحنا نحسن واحد. laakiin wadamo badan baa federaalka ku dhaqmo oo wadanka ku noosho Germany kamid yahay Mareykanka uu kamid yahay haddana ku faa'iiday oo barwaaqooyin badan ku gaaray muxuu dan ugu hayn marka wadankeena لكن جمالي ورطها لكن أنا وحنا مادام أنا دت قاب قبيل أما قبيل لو أما قاب قبيل وتقال أما قبيل صومالي أو بحضو أنا ما فهم لكن وضمن كره أي قاب قبيل ما استعمال قاب مجال استعمالا قفك مجال كسر جيد حوله أنا بره مجال أسبان هاي marka saas bay nooga duwan yihiin dadkan kale malahan afkir iyo qaabiil iyo waxa macnaha oo kala saaro waa gartay wakaalka waxa leedahay odayaal dhintay oo u baahan duco waxa la leeyahay waxa loo kala baxayaa qabiilo iyo jifooyin oo la isku haystaa macnaha qabiilkii ba anaga uu ka jira macnaha waxaan nahay qabiil ba u dhiganahay sida carabta kale carabta qabiilkaas isticmaasha federal lama isticmaasho sax waad aragtay dawlad waxa hayso ama military ama qaab ciidan ba loo maamulaa saasayna ku joogi kartaa xataa wadamada badan qabiilada isticmaalo oo ama qabiilka u kala baxo dimuqraadinimada xataa kuma fiicno iyo doorashada waxyaalaha aad ugu fiican yihiin waxa weeye kacaanka iyo military sababtoo iskuma hayn karadii marka aragtidaada waxay kula tahay Soomaaliya dawlad military kaliya in ay maamuli karto nacam aniga waxaan aaminsanahay in Soomaaliya waxay maamuli kartaa ay tahay dawlad military awood macnaha waa absi bas waxa macnaha lagu maamuli karaa dad dimuqraadi iyo federaal iyo qof walba hal macnaha faraha laga qaada dad ku wada noolaan kara ma sababtoo waa dad qabiil صح wadad dahayo qabiilkayga halkaan ka soo jeeday qabiilkayga halkaan la iyo waxa la yaabaa qabiil dartiis inuu wadankii uu qofka iibiyo dad shisheeya uu ka gado sababtoo qabiilkiisa uu fiirinayo meeshu